waxaan rabaa marka hore aniga iyo wasiir Cabdiraxmaan anagoo ku hadlayno afka dawladda Soomaaliya waxaan idinkaga mahad celinaynaa geesinimadii aad qaadateen ee aad ugu tanaasulsheen uguna hiiliseen qarankiina go'aansateenna in dagaalkii iyo hawshii aad ku jirteen aad ku beddeshaan midnimo wada hadal aad qaadataan iyo sida karaamada badan ee iyadoo uu idin hogaaminayo wasiirkiinni halkan aad u timaadeen mahad celintaas ayaan idiin jeedinaynaa walaalayaal aad iyo aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin marka labaad waxaan idin soo gaarsiinaynaa salaanta aan idinkaga sidno madaxda qaranka oo madaxweyne Farmaajo uu ugu horeeyo iyo ra'iisul wasaare Rooble taliyaha ciidanka xoogga wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaasha kale ee ciidamada qaranka oo dhammaantood nafaray inaan idin soo gaarsiino salaantooda intaas ka sokow waxaan rabaa inaan ayido oo aan adkeeyo hadalkii wasiirku uu idin sheegay oo ahaa laga bilaabo maanta inaad ka tirsan tihiin ciidanka qaranka Soomaaliyeed go'aankaas waa go'aan dawladda Soomaaliyeed qaadatay sida wasiirku idin sheegay waxa halkan jooga saraakiisha ka socotay wasaaradda gaashaandhigga iyo qaybaha kale ee ciidamada qalabka sida waxa idin imaan doonta mas'uuliyiinta ka socotay wasaaradda maaliyadda waxaad mari doontaan habraaci ciidamada waa maalin weyn oo qof kasta oo idin kamida qaar badan oo idin kamida laga yaabo inay hore ugu bilaabatay laakiin intiina aan ku jirin taariikh weyn oo qaali ah ay idin bilaaban doonto taasoo ah inaad tihiin ciidan qaran oo qaranka Soomaaliyeed matala jamhuuriyadda Soomaaliya dadka Soomaaliyeed ee ku noolna guud ahaantood matala taasoo ah runtii sharaf iyo cizi aad iyo aad maaragta u weyn mustaqbalkiina aad u harsan doontaan ubadkiina uu harsan doono idinkuna karaamo iyo sharaf aad weyn maaragta aad ku lahaa doontaan marka sida uu wasiirku sheegay waxaan maaragtay idinkula dardaarmaynaa in aad qalbigiina ka saartaan wax kasta oo walwala oo aad dawladda dhankeeda ka qabteen inaad ogaataan laga bilaabo maanta inaad dawladda ka mid tihiin safka qarannimada inaad ku jirtaan dagaalkii iyo jihaadkii aad kula jirteen cadowga ummadda Soomaaliyeed halkaas aad ka sii wadaan ciidamadiina aad la walaalowdaan aad ka mid noqotaan insha Allah tacaala waxaan rajaynaynaa qaar idin kamida oo maalmaha soo socda ama maalmo kamida xukuumo qaybo kamida ciidamada Soomaaliyeed idinka oo ku raaxaysanaya oo dhadhamiyay sharafta iyo macaanka qarannimadu ay leedahay idinka oo ku faraxsan inaad walaalihiin iyo hooyooyinkiin xoreysaan ma aha kaliya gobolka Gedo ma aha kaliya Jubbaland waa jamhuuriyadda Soomaaliya marka magac weyn iyo sharaf weyn ayaad u taagan tihiin calanka halkaas aad ku xiran doontaanna karaamo weyn iyo macno weyn ayuu leeyahay marka marraba hadalka intaas inaan ka badiyo aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin